ninkii qarsoonaa ee Dimashq Suuriya helo asxaabta sharafta badan ku soo dhawada hoyga qisooyin calamka ee Bahar Nahri Subscribe Nosara channel likek dheh muuqaal nagulawag wixii rayiga kobantiga mahadsanid dhammaantiin. Sanadkii 2008 magaalada Dimashq Damascus waxaa ka dhacay dhacdo argagax gelisay dadka deganaa xaafad degan oo caan ku ahayd amniga iyo xasiloonida. Bilowga qisada. Guri dabaq ah ayaa laga helay nin ganacsade ahaa oo meyd ah, jirkiisana wax dhaawac ah kama muuqan. Albaabkii guriga wuu xirnaa, daaqadna lama jabin. Wax walba waxay u ekaayeen inuu si dabiici ah u dhintay. Booliiska markii hore waxay u diiwaangeliyeen wadne istaag. Laakiin shaki cusub. Maalin kadib, dhakhtarkii sameeyey baaritaanka meydka, autopsy, ayaa arkay wax aad u yaab leh. Sun aan ur lahayn. Suntaas oo jirka ka baxda 2-4 saac kadib. Isla suntaas oo aan raad reebin haddii aan si gaar ah loo baarin. Waxaa caddaatay in ninka la dilay, balse si aad u xeel dheer. Baarista dembiga. Kooxda dembi baarista Suuriya waxay bilaabeen baarista taleefannada, kamaradaha waddooyinka. Dadkii la kulmay ninka 48 saac ka hor dhimashadiisa. Hal shay ayaa si gaar ah u soo jiitay, saaxiib dhow oo guriga la joogay habeenka dhimashada, balse sheegay inuu ka baxay saacad ka hor. Sir la ogaaday. Booliisku waxay ogaadeen in saaxiibkaasi ahaa farmashiiste. Uuna aqoon u lahaa sunta. Uuna ninka siiyey cabitaan ay ku jirtay suntaas. Ujeedadu. Murano dhaqaale iyo deymo qarsoon. Xukunkii. Kadib qirasho iyo caddeymo culus. Ninka dilaaga ahaa waa la xukumay. Kiiskaasna wuxuu noqday mid lagu barto kulliyadaha dembi baarista Suuriya. Baaristu way sii qoto dheeraatay. Kadib markii la xaqiijiyey in ninka la sumeeyey, booliiska Dimashq ma aysan ku ekaan saaxiibka farmashiistaha ah oo keliya. Waxay isweydiiyeen su'aal halis ah. Ma keligiis ayuu falka sameeyey mise qof kale ayaa ka dambeeyey? Sir cusub oo soo baxday. Markii dib loo baaray taleefannada, waxaa la helay wicitaanno qarsoon oo la tiray. Wicitaannadaas waxay u dhexeeyeen farmashiistaha iyo nin kale oo ganacsade ahaa. Ganacsadahaas wuxuu ahaa cadow hore oo marxuumka ah. Qof si weyn u khasaaray kadib muran ganacsi. Qorshe la soo diyaariyey muddo dheer. Dembibaarayaashu waxay ogaadeen in dilka la qorsheeyey in ka badan 6 bilood. Sunta laga keenay dibadda dalka. Loo doortay hab aan wax raad ah reebin. Farmashiistaha isagu ma ahayn maskaxda dembiga, wuxuu ahaa qalab la isticmaalay. Markhaati lama filaan ah. Haweenay deris la ahayd marxuumka ayaa markhaati furtay. Waxay aragtay nin kale oo guriga soo galay habeenkaas. Ninkaasi ma ahayn saaxiibka farmashiistaha. Arrintan waxay gebi ahaanba beddeshay jihadii kiiska. Runtii qarsoonayd. Ugu dambayn, ganacsadihii labaad waa la qabtay. Wuxuu qirtay inuu bixiyey lacag, qorshe, iyo amar cad dilka ha u ekaado mid dabiici ah. Dhammaadka kiiska. Maskaxdii dembiga, xukun xabsi dayn. Farmashiistihii, xabsi dheer. Kiiska wuxuu galay taariikhda Suuriya. Waxaa lagu tilmaamay dilkii ugu nadiifsanaa ee haddana la fashiliyey. Khalad yar oo burburiyey qorshe weyn. Inkasta oo dilka loo qorsheeyey si xirfad leh, haddana hal khalad oo yar ayaa fashiliyey dhammaan qorshaha. Farmashiistaha isagoo ka baqaya in la kashifo wuxuu sun kale ku qariyey gurigiisa. Isku dayay inuu tirtiro raad kasta. Laakiin booliisku waxay heleen qoraal yar, note uu ku qoray magacyo iyo taariikho. Qoraalkaas wuxuu muujinayay kulamo sir ah. Caddayn cilmiyeed. Dembibaarayaashu waxay sameeyeen baaritaan heer sare ah. Sunta lagu helay guriga farmashiistaha. Sunta ku jirtay jirka marxuumka. Waa isku mid, inkastoo sunta jirka ka baxday, raadkeeda kiimikaad ayaa haray. Tani waxay noqotay caddayntii ugu xoogga badnayd. Qirasho lama filaan ah. Maxkamadda dhexdeeda. Farmashiistihii wuu jabay. Wuxuu qirtay inuu sunta ku daray cabitaanka. Wuxuu sheegay inuu ku qasbay cabsi lacag.
markaas kadib ganacsadihii labaadna wuu qirtay go'aankii taariikhiga ahaa. Maxkamadda Dimishiq waxay soo saartay maskaxdii dembiga xabsi dayn, fuliyihii farmashiistaha xabsi 5 sano, hantidii lagu helay dembiga waa la xayiray. 10 adduunka qabsaday. Kiiskan waxaa lagu daray buugaagta dembi baarista. Waxaa lagu bartaa kulliyadaha sharciga. Waxaa loo bixiyey naanayska dilka aan dhiiga lahayn ee la ogaaday. Ereygii ugu dambeeyey. Dilka ugu xariifsan mar walba wuu ka tagaa raad xitaa haddii uu u ekaado mid quman. Asxaabta qiso kale oo u eg ayaa nagu daraya sanadkii 2011 magaalada Aleppo ee Suuriya. Booliisku waxay la kulmeen kiis loo bixiyey mid ka mid ah dembiyadii ugu yaabka badnaa ee abid la diiwaangeliyo. Bilowga argagaxa. Habeen roobaad ah, booliis ayaa laga wacay, mayd ayaa laga helay guri duug ah. Markii ay tageen, waxay heleen nin si arxan darro ah loo dilay. Wejigiisa waa la gubay. Faraha waa laga jaray. Aqoonsi ma jirin. Booliisku waxay u bixiyeen mayd aan magac lahayn. Aqoonsi been ah. Kadib baaritaan dheer, waxaa la helay warqad aqoonsi, magac, qoys iyo taariikh nololeed. Qoyska ayaa loo yeeray. Laakiin yaab. Qoyska waxay ku dhawaaqeen, ninkan waa nala aasay 3 bilood ka hor. Qabriga oo la furay. Booliisku waxay amreen in qabriga la furo. Waxa ay heleen qabriga oo madhan, wax mayd ah ma jirin. Halkaas ayaa kiisku galay heer kale oo cabsi leh. Sirta qarsoon. Baaritaan sirdoon kadib waxaa la ogaaday. Ninka wuxuu ahaa ganacsade sir ah. Ku lug lahaa tahriib xog qarsoon. Wuxuu sameeyey geeri been ah. Ujeedadu inuu ka baxsado cadowgiisa. Laakiin qorshaha oo isrogay. Cadowgiisii ayaa ogaaday inuu nool yahay. Inuu mar kale magaalada ku soo laabtay. Waxay afduubteen, dileen, jirkiisana u dhaawaceen si aan loo aqoonsan. Isagoo markii labaad la dilay. Dhammaadka murugada leh. Ugu dambayn, koox dambiilayaal ah waa la qabtay. Kiiska waxaa lagu daray buugaagta dembi baarista. Daraasadaha forensikka. Waxaa lagu naanaystay ninkii ka baxsaday geerida. Laakiin aan ka baxsan karin runta. Cashar madow. Qisadan waxay caddaynaysaa qofku wuu khiyaami karaa dadka, laakiin kama carari karo cawaaqibka dembigiisa. Asxaabta intaas ayay ku eg tahay qisadana caawa. Haddii aad halkan nala soo gartay, mahadsanidin dhammaantiin. Subscribe noo saara channel sidan iyo salama Allah. Nahri's YouTube channel now.